tani waxay noqonaysaa jawaabtii shanaad ee Spanish iyo Mareykanku isku marinayeen hawada. No a la guerra. Waa jawaabo kulul. ugu horreyntii Mareykanka ayaa wuxuu ka codsaday Isbaanishka inuu isticmaalo baysaska ay ku leeyihiin Middle East-ga. Kabacdi ra'iisul wasaaraha Isbaanishka wuxuu ku jawaabay sidaan. Total wuxuu ka soo horjeestay in loo isticmaalo baysaska Isbaanishka ay ku leeyihiin Middle East-ga in laga weeraro Iran. Isla markiiba Donald Trump oo nafta ku dhacsantay ayaa soo fariistay media wuxuuna sheegay. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use. haddaan u baahnayn inaan isticmaalno baysaskooda maba weydiinaynaba waanu fadhiisanaynaa waanu ka duulaynaa very simple. Saad la socotaan Donald Trump dagaalkan wuxuu ku qaaday Iran isagoon ka haysan approval Congress-ka. Sharciyan dagaal markuu gelay Mareykanku waa inuu soo ansixiyaa Congress-ka sababtoo ah lacag badan baa ku baxaya. Kabacdi markuu arkay inaan dowladda Mareykanku la socon dagaalkan ku qaadayo Iran wuxuu wadamada reer galbeedka oo dhan ku amray inay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya dagaalka 5% boqolkiiba 5 inta laftigeeda way ka soo horjeestay oo inay khilaaftay. waxayna u sheegtay habka qura ee dagaal lagu dhameyn karaa inay tahay inaad dagaal la bilaabin. haddana mar afraad afhayeenka White House-ka Caroline ayaa waxay sheegtay inay Spain aqbashay inay dagaalka ka qayb qaadato sidoo kale la isticmaalo baysaskeeda. isla mar shanaad waxaa dhinagriyay oo hadalka ku sheegay waxba kama jiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Isbaanishka Juan Manuel isagoo sheegay warka ay sheegtay afhayeenka White House-ku waxba kama jiraan. dagaal qabow ayaa wuxuu ka dhex socdaa Isbaanishka iyo Mareykanka. saa la socoto Isbaanishku aad uga soo horjeeda talaabooyinka qaadka Israa'iil sidoo kale Isbaanishku maaha pro-American maaha wadamadan daba carray. saad aragtay Pep Guardiola coachka Manchester City wuxuu mar walba u waloleeyaa qadiyadda Gaza. nimanka Isbaanishku waa niman cajiib ah.